Bismillahirrahmanirrahim. Halkan waa xulka wararka channel qodobada wararka aan idin haynana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo ka hor yimid qorshe uu waday Dr. Abiy Ahmed oo Imaaraadka Carabta gadaal ay ka riixayeen xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Beledweyne ay gudoomiyay xilka laga qaaday oo taageero lama filaan ah helay Somaliland oo war ka soo saartay hadalkii dhawaan dawladda Soomaaliya ee ku saabsanaa qunsuliyadda Kenya iyo safarka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ee magaalada Boosaaso uu ku gaaray oo saddex ujeedo u xambaarsan yahay xog faahfaahsan ayaan idinkaga haynaa ee u diyaar garooba saaxiibayaal daawashada wararkeena intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobadii wararka aan idin hayna kuwooda ugu waaweyn waana 10 bisha 6 ee Juun 2019 waxaad u diyaar garowdaan qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan warar hoose oo ay helayso xulka warka ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu gabi ahaanba ka biyadeeday qorshe uu waday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo doonayay inuu isku soo dhaweeyo Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta xubnaha ka socda Imaaraadka Carabta ayaa kulamo kala duwan kula yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed iyadoo waxyaabihii la isla soo hadal qaadanay qayb ka ahayd in la hagaajiyo xiriirka Imaaraadka Carabta ay ku leedahay guud ahaan dalalka Geeska Afrika saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya warqad u soo diray madaxweyne Farmaajo isaga oo ka dalbaday inuu miiska wada hadalada ay isugu yimaadaan Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta madaxweyne Farmaajo ayaa ku eedeeyay Imaaraadku in uu qorsheynayo afgambi uu ku rido dawladdiisa isla markaana ay tahay khalad weyn oo laga galay dawladdiisa intii ay hadda jirtay sidaas darteedna aysan diyaar u ahayn wada hadal inay la galaan Imaaraadka Carabta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intaasi raacay digniin uu diray Imaaraadka Carabta taasoo ku aadan in weli uu carqalad ka dhex wado maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dhowr jeer sameysay isku dayo ay ku doonaysay in ay ku soo celiso xiriirkii kala dhaxeeyay Soomaaliya mid wanaagsan balse madaxweyne Farmaajo ayaa ka soo horjeestay arrintan iyadoo madaxda dalka ay diyaar u yihiin in la wada hadlo dhinaca Beledweyne haddii aynu fiirino xiisad dagaal oo aad u xoogan ayaa ka taagan inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasoo u dhaxaysa ciidamo ka amar qaata Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiye xilka laga qaaday ciidamo kale oo ka amar qaata madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare inta badan xiisada dagaalka ayaa waxa ay ka taagan tahay kastamka canshuuraha xarunta gobolka iyo kontaroolada laga galo magaalada Beledweyne oo dhammaantood ay ku sugan yihiin ciidamada Yuusuf Dabageed kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayay ku heshiiyeen in uu iska difaaco weerar kasta oo kaga yimaada maamulka Hirshabelle oo gobolka Hiiraan ay ka tirsan tahay iyaga oo u ballan qaaday taageero dhan waliba ah taageerada odayaasha ayaa la sheegay in ay si lama filaan ku noqotay Dabageed waxaana uu ku dhiiraday in uu sheego in uu yiri waxaan ka go'nay ama aan ka tashanayna guud ahaan Hirshabelle arrintaas ayaa abuurtay walaac xooggan oo ka bilowday guud ahaan magaalada Beledweyne wararka kale ay helayso xulka wararka ayaa xaqiijinaya in ay dhanka Hirshabelle ay diyaar u yihiin in ay xoog ku qabsadaan dhammaan xarumaha muhiimka ah ee Beledweyne madaxweyne Waare iyo Cali Guudlaawe ayaa amar ku siiyay ciidamada militariga ee ku sugan Beledweyne inay soo qabtaan Yuusuf Dabageedna waxa uu carabka ku dhuftay in uu isdifaaci doono haddii uu dareemo in isaga lagu soo wajahan yahay haddaba magaalada Beledweyne waa dagaal u joog waana fududahay in lagu dagaalamo daqiiqad kasta Yuusuf Dabageed waxa uu haystaa ciidamo aad u qalabaysan iyo gaadiid dagaal halka Hirshabelle oo haysata ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay doonayaan in magaalada ay ka saaraan Dabageed ilihii dhaqaalaha iyo xaruntii gobolka uu ka dagan yahay hadda ma jirto wax dhaqdhaqaaq ah oo ay wadaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ku aadan qaboojinta xiisada laga soo sheegayo gobolkaasi Hiiraan haddii dagaal uu ka dhaco Beledweyne waxa halis gali doonta nolosha kumanaan shacab ah oo hadda la daalaa-dhacaya duruufo nololeed aad u adag xukuumadda Somaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay si adagna uga hadashay hadallo ka soo yeeray dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad
oo sheegay in Soomaaliya ay u ogolaatay dowladda Kenya in xafiis ay ka furato Hargeysa. Warbixin uu dhawaan soo daabacay wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxa uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay u ogolaatay Kenya in qunsuliyad ay ka furato magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland. Waa dowladda Soomaaliya cidda Kenya siisay ogolaanshiyaha in qunsuliyadda ay ka furato Hargeysa. Kenyana waxa ay inaga noo ogolaatay inaanu qunsuliyad ka furno Mombasa haddii aynu doonayno. Sidaas waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Cawad. Hayeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Farator ayaa sheegay in ay dowladda Soomaaliya ay isku dayday in ay ka hor istaagto xafiiska ay Kenya ka furanayso Somaliland, balse arrintaas iyada ay suuragali weyday sidoo hadalka u dhigay. Wasiir Farator ayaa yiri Soomaaliya waa cadowga Somaliland. xafiiska Kenya ay ka furanayso Somaliland aad bay uga carootay marar badan waxay isku dayday inay iska hor istaagto, taasina way suuragali weyday. Xitaa horumar kasta oo Somaliland ku soo kordha aad ayay uga xumaadaan. Markaas Soomaaliya qaab ay ku heshiiso ayay garan weyday. Kenya waxa ay qeyl ka dhigatay xafiiskan oo aanay shaqo ku lahayn fududeyntiisa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland. waxa uu hadalkiisa raaciyay Somaliland wadamada iyo cid kasta oo ay la macaamilayso uma sii marto Soomaaliya. wakiilna inagama ahan Soomaaliya, laakiin maamulka Muqdisho waxa ay ka xumaadaan xiriirka Somaliland iyo Kenya iyo khilaafka soo kala dhexgalay iyada iyo Kenya. Markaas haddii maamulka Muqdisho uu garan waayeen qaab ay kula heshiiyaan Kenya, ma aha in Somaliland ay khil ka dhigtaan. Sidaas waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi Axmed Karaash ayaa safar degdeg ah ku tagay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. safarka oo xilli habeen ah ku soo aaday ayaanan horay loo shaacin, waxaana uu xalay gaaray magaalada Boosaaso isagoo sii maray deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Bari. wararka aan helayno ayaa xaqiijinaya in safarka Axmed Karaash ee Boosaaso uu ku saleysan yahay 3 ujeedo, waxaana muddo kooban uu ku joogi doonaa magaaladaasi isagoo la rajeynayo dib ugu soo laabto magaalada Garowe. isagoo saxaafadda la hadlayay waxa uu sheegay Axmed Karaash in safarkiisa uu yahay mid shaqo, isla markaana muddo kooban uu ku sugnaan doono magaalada Boosaaso kadibna uu ku laaban doono halkii uu ka yimid ee Garowe. waxaan halkan u nimid safar gaaban oo shaqo oo ku beegmay goor habeen ah. waxaan soo marnay degmooyin. ujeedada waxa ay tahay inaan waqti yar joogi doono halkan, ayuu yiri Axmed Karaash. xogaynu heleno ayaa sheegaysa in ujeedada koowaad ee safarkiisa ay tahay wax ka bedelidda laamaha amniga magaalada Boosaaso si loo adkeeyo amniga magaaladaasi oo maalmihii ugu dambeeyay u muuqanaya mid faraha ka sii baxaya. ujeedada labaad ee safarkiisa ayaa ah arrinta ku soo cusboonaatay deegaanka Afurur oo Al-Shabaab ay la wareegeen kadib markii ay ka soo baxeen daraawiishta Puntland, waxaana deegaankaasi uu 90 kiiloomitir u jira magaalada Boosaaso. ujeedada saddexaad ee Axmed Karaash Boosaaso uu ku tagay ayaa in uu kulamo degdeg ah halkaasi uu kula qaato wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan iyo taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo maalmahanba xiisad ay kala dhaxaysay madaxweyne ku-xigeenka Puntland. shirar gaar ah ayaa ka socda xarunta gobolka oo ku taala magaalada Boosaaso, waxaana kulamada ugu badan wada qaadanaya saraakiisha ammaanka, wasiirka amniga iyo madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Puntland. magaalada Boosaaso iyo deegaanada kale ee Puntland waxaa ka socda abaabulka ciidamada Puntland si ay dib ugu qabsadaan deegaanka Afurur oo si nabad ah ay ula wareegeen Al-Shabaab. waanaga intaa saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xulka wararka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. haddii aad ku cusub tahay waxaan ku xasuusinayaa inaad dhahdo subscribe, like-na ay saarto qaybta hoosena aragtidaada aad nagula wadaagto.